عبد أحمد oo ka mid ah burcadbadeeda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga lamarkan ayaa ku soo siiyay qolada markabka ay soo siisay walaal qoladan markabka iska lahayd oo meel xagee joogan Dubai bay joogan Dubai bay degan yihiin in markabku muxuu siday maxaa saaraa intaas uma doonaynaa inaan xaqiijino ma malaysaa ha walaal ayaga maxay weydiin weyd iyagu waxay igu yiraahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari waa garta idinku ma xaqiijiseen waxa markabku uu sido maanagu waxba waa ognahay waxna moogin waatay waxa ogtiin muxuu yahay ma malaysaa waan ku maqlayaa Cabdisalaan Hareeri inaad tahay maxaa ku cadaynaysaa waa Cabdisalaan Hareeri baa walaal kula hadlaya Voice of America kaala soo hadlaya hadda maxaan ku cadaynayaa anigu ilaa Voice of America ma jooge dad dhaladaan joogay London baan kaala soo hadlaya warkanna idaacadaad ka dhageysan doontaa ma maqlaysaa hadda idaacadii lama jooge waxaan ku yiri maxaan kugu cadaynayaa adigu hadda Cabdisalaan Hareeri maxaa doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo ma maqlaysaa waan ku maqlayaa adiga magacaa عيسى عبدي أحمد عيسى مركب كالكيك سوق وطن ما ملكا هاي مركب كالكيك سوق وطن عيسى ورنيجا وحنا كل شيء هذه وحنا ربا عبدالسلام هذي إنك إله الله يا إنك لا تسمع بينكرو وحنا قوية هذه مركب كان قد هندية alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa wararbaad jira sheegaya ciiso inuu hub sido markabku ma yaan wax huba oo indhahay u qabteen oo markabku waday ma jeedin ciiso marka lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furasho in markabka la idinka siiyo waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baad noomay sheegin wax qiimo oo ilaa imika ku heshiiseen haddaynan idin sheegin hadda kuu sheego maxaa ka qaban karaysaa ma lacagtaan ma siinaysaa maya iyaga loo gudbin lahayn oo dhageysan lahaa dalabkiina ayaga maya live baan wada hadalnaa ilaacada waxa ka wada hadalnaa telefoon baynu ka wada hadalnaa laakiin ciise ma ii sheegi karaysaa qiimaha lacagta dalbanaysaan anagu waxaan kuu sheegi karaynaa lacagta markaan iyaga ka wada hadalno ciisow hawshana ku jirtaan idinku sida u aragtaan dad fara badan waxay u arkaan inay tahay hawl burcadbadeednimo ah oo argagixiso badda laga sameeynaya adeero anagu dad masaakiina oo kalluumaysata oo badahooda ka kalluumaystaan wahayn waxaana la ku soo daayay qashin kuwa sida maraakiib sida waxaana la ku sii daayay kuwa sun sida waxaana la ku sii daayay kuwa jiriifa waxa hadda ugu dhinac xiran mid kalluunka yagii wata sanaagaha yagii wata baraawiista yagii wata xargaha yagii wata qalabka yagii sita badiidaan ka mari weynay markaan dabacnay inaan iska difaacnana kuwa dagaal baa naloo adeegsado caalamku noo adeegsaday dad fara badan baa qaba sidaas inay tahay sidii markii hore ay ku bilaabantay laakiin ciisow imika waxa la sheegayaa in badihii caalamiga ahaa oo ilaa Seychelles gaadhaan oo maraakiibta ka soo qabsataan oo kalluunkuna aanu ahayn kii badaha Soomaalida lagala soo baxayay annaga maxaan ku yiri xeebtii annagu aan ku noolayn oo biyaha afkooda naloo soo galay annagana duruuftu meeshay nala gasho baan aadaynaa ilaa annagaba guryaha yagii iyo xeebta yagii baa la soo galay maxaa looga hadli waayay meeshii annaga aanu kalluumaysadayadu aanan dhaafi jirin iyo meeshii aan maaragtay ilmaha iyagu xeebta iyagoo taagtaagan ay ka kalluumaysan jireen maxaa looga hadli waayey maaragtay marka naloo soo galay oo qarkii la jajabshay oo hugtiina la ka jajabshay oo marsooyinkiina la ka cayrshay oo qalabka iyagii lagu gurtay laakiin markabkan ay imika haysataan ma aha soo maaha mid isagu kalluumaysi maaha soo maaha adeerow macaanow annagu ma kala naqaan mid aan u qabna xamuul ayaa waxaan aragnay kurtanaro bam ah asagoo nagu deex furayaynu aragnay marka annaga waxa weeye midkii annaga aan markaa badarka noo wadin oo aanan hebel u aqoon ma kala garan karno kii xamuulka ahaabaa waxaa naloo soo saaray haamo bam ah oo qashin ah waxaa naloo soo saaray muxuu ahayto ayagii baa jiriifnala kugu bedelo jilba naloo soo saaray kalluumaysi ah midkii dagaalka oo xabadaha nagu ridayay ayaa dhinacna kalluumaysi ka oo xeebta noo taagan dhinacna xabad nooga ridayo annaga xabad nala dhacaya idinka yaa hawshan markaa idiin xil saaray waxaad tidhi dad kalluumaysataa baanu hayno quutal daruurigoodii laga hor yimi yaa idiin xil saaray hawshan annaga duruuftaa noo xilsaaray waqtigaa noo xilsaaray waxa weeye markii anaga aan wixii aan ka qaraaban jiro ilmaha ku korsan jiray aan weynay duruuftaa noo xilsaarnay inaanu difaac galno
maraakiib horena sidaan qiyaasaya waa qabsateen ciisow soo maaha qoladiinnaasi maya annaga waxaana dhibaatayn ma dhibaatayna annagu wixiina nabadgelya waana nabadgelinaa wixiina dhibaateeyana way iska ilaalinaa oo waxaanu nafta la galnaa inaanu iska celinno siday u badan tahana hadda waaba nala ka awood badan yaho waa nala ku laayaa annaga laakiin maraakiib hore waa qafaalateen sow may jirin si ay ku dhammaatayba may maqlaysaa waan ku maqlayaa ciise annaga waxna nabadgeliyey ma qafaalano waxna ma qafaalane wixii nagu soo xadgudba ma waxaan isku daynaa inaan iska difaacno kaasina wuxuu ahaa ninka magaciisa iigu sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda iyagu haysta markabkaasi almiisaan cabdi axmed oo ka mid ah budhcadbadeedda markabkaasi haysataa hadalkiina dhex marayna waxa uu dhacay sidan adiga lambarkan ayaa ku soo siiyey qolada markabka ay soo siisay walaal qolada markabka qoladan markabka